السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيلا جوجا استوديوغا يقولوا سوى مانتا وشرح شينك وريبي وشينو علي ومانتا باوكي سيدال سو شبتay in ma taqaana bal uu weeraan uu wasiirka warfaafinta maamulka Highland uu noqdo marka aniga shiina maanta waxba soo reebo mayne waxaan weydiiyay maanta waxa timid Holland Jarmalkii waad ka soo baxday halkaan aad joogtaa shiino waad Amsterdam soo aragtay ninka beesha caalamka waad waraaqa inta lacag aad gudbisay maxaa inta la ruclaa adeerku gelinaya waa kuwaas ninka daniha laga barwaaqaystay waa ka warsinginay dhulbahanta gacanta u buuxiyay xeel ku taxay maxaa waxaan dhib ku gelinay ciyaalka xaafada ahayd السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ظاهر وحوي وآدم كوجو مهد علينا سيدا شرفت له ووضن كاجي مقالة هذه يجورجاجي يجوشوا دويسي داودياش هذا نوا سلام يا سلام كدي بسا شيكتي شلق قلب بوحني مع هذا وضن كهولن أمستردام الحالي جوجي هالكاس دد سيدا عن فيسبوك يكسر شيء دد كدنيا الصومالية ما هدد كحلك هاي هذا أيوة حكلا معها لكن مع هذيات جرا دولة كلات تليه بدنا محاكور هذا سياسة ضوضة سي وجانجوين هايين dad kaas waxaan ka soo gadayay maamulkii waayatan aan ku wareersanayn denin waxaan hayno activist ah oo Soomaali dhaqdhaqaaq ah hadba meesha ka shidan tahay oo kale aan maartay xoog saaraa goboladaas waxa jirta inay maamul sameeysanayaan dad Soomaaliyeed oo dhiban weeye muddadii burburka ahayd meelaha oo aad ka burburka u saameeyay dhibta ugu weyn oo ay gaarka u qabaan waxa weeye waa dadka kaliya oo lagu muransan yahay galmudug lagu muransan degmo kale oo Soomaaliyeed lagu muransan bu'aale lagu muransan waxa weeye ama al-shabaab baa qabsanayso gacanta ku haysa hadii ay ka soo baxaan Jubbaland bay gacanta u galaysaa hay'adu waa ka shaqeynayaan laakiin gobolada tan ama Puntland gacanta ku hayso ama Soomaaliland gacanta ku hayso ama yee labada midba gacanta ku hayn waa dhul lagu muransan yahay cid u tagaysa oo wax gaarsiinaysa ma jirto Puntland oo kale ama Soomaaliland oo kale waxyaabaha horumarinta oo ay qabtaan beesha caalamka soo siiya hay'adaha soo siiya hay'adu marka ma ogola inay dhulka tagaan de wixii berbera ka soo baxana muuse de wax dhaafi kara ma wixii dekada boos ka soo baxana wax dani dhaafi kara ma wixii hay'adaha laga helana hay'adu markay tiraahdo tusaale ahaan oo kale 20 iskuul baan Puntland u haya ama laba wado baan rabaa inaan dhiso markuu dani haduu dadaalo oo soo xasuusto dhaho wadada waxaan rabaa baran inaan ka bahalkayo muuse dhahaya maya waxa la leeyahay magaalo kala sheego qardhu sheeganaya marka ninka la dhaho muuse bixina siyaasi lamida hadii uu degmooyinka gobolka Sool oo kale uu gacanta kaga hayo oo uu dhaho degmo hebel aan waxaan rabaa waxa inaan ka sameeyo dani ba xanaaqaya marka waxa la dhahayaa muuse iska dhaaf degmadaas meel kala sheego burcu sheeganaya marka dhibtaas ayaga si gaar u haysa dadka comment soo qoraya Abdulba ku bilaabay baaxi waxay ku yiraahdeen hawi wuxuu leeyahay Hirshabeelle iyo Galmudug daaroodna wuxuu leeyahay Puntland iyo Jubbaland ma maamul saddexaad oo daarooda ayaad shiino maanta group u jirtaa sidee bay nooga gadmaysaa lagu yiri okay waxa weeye horta goboladaas Soomaaliya oo dhan baa degan hawiya degan oo fiqshin oo niman cayra oo hawiya oo habad gidiro baa degan gobolka Sool waxna kuma haystaan degayso waa ka helayaan maamulka la dhisi doono member fiican bay ka noqon doonaan insha Allah Highland marka dir baa degan isaaq baa degan habar jeclo iyo habar yoonisa wax ka dhisan doona maamulka cid walba degan arinta hadda ka dhawaajisay dad badan baa qaba laakiin waxaan ku sheegayaa hawiye waxa u soo socda maamul goboleed la yiraahdo Banaadir State cid celin karta ma leh Banaadir xuquuqdoodu waa maqan tahay waa in la helo waa lama huraan weey Soomaali dhinacna uma dhaafi karto waa in xuquuqdi gobolka Banaadir uu helo Banaadir wuxuu noqon doonaa maamul goboleed powerful ah sida la socota 3 milyan oo qof ku nool 3 milyan Puntland kuma noola Jubbaland kuma noola Somaliland kuma noola sida la socoto beesha caalamka oo dhan baa joogta dawladda oo dhan baa joogta waa dameesha maanta isha Soomaali u baxaysa xogaa dhibaato waxa ku aan nabadgelyada xumada jirta hadii laga baxo Banaadir State waxay noqonaysaa maamul goboleed oo cid celin karta lahayn hawiye kaas u soo socda hawiye jaal hawiye saddex buu leeyahay marka compromise ina sameeyo baan rabnaa oo jaal daaroodna oo saddex xilo waa ogtahay oo hawiye daarood dad isu muuqdo waxa weeye jimbas daba dhigay inuu mid kala dheeraado marka qodobkaas afishaarnimada ku difaacdo qodobkaas waxaan ku weydiinay afta waxay ku leeyihiin waa la og yahay nimankiina dhulmahante iyo warsingili farmaajo idin riixaya oo dawladda federaalka idin riixayso idin maal gelinayso waxaas waa wuxuu ku bacay dhooba dareed mise dhooba daarood wuxuu ku bacay weeyaa lagu yiri commentiga
صح ما فهمتي سيف يعني dhoobo daarood wuxuu ku ba'ay weeyaa lagu yiro xilka uu ku waaye weli ma taqaanaa shiinow ma arrintii dabada haysaa aan kuu sheego farmaajo annaga na taageeri mayo dowladda federaalkuna na taageeri maysid na taageeri mayso waxaan xaq u leenahay baa jirta dowladdu waa dowladeedii waxaan xaq ugu leenahay waxa weeye dadkaasi hadduu aayihiisa ka tashado oo yidhaahdo puntland ima anfacdo somaliland ima anfacdo saatan kuma jiri karo maamul goboleed aniga ii gaara baan samaysanayaa dowladda Soomaaliyeed ma diidi karto beesha caalamka ma diidi karto waa ku khasban tahay marka dowladdu inay aqoonsato oo taageero siiso sababtoo ah dastuurkii iyo xeerarkii kaleeto ee maxaa Soomaaliya u yeelay way buuxiyeen marka taa laga yimaado waxa jirta dowladda federaalka Soomaaliyeed farmaajo ha joogo bari ha tago cid kale ha timaado interest leedahay baa jira interestiga waxa mararka qaar kood common interest macnaha dan idin meeyaysa jirta dowladda Soomaaliyeed dan maxaa ku raadayay rabno in laga gado oo adiga laftiga aan halka u marinayo waxa weeye jirta dowladda waxa weeye goboladaas hadii maamul goboleed noqdaan Soomaali dan baa ugu jirta danta ugu jirta koow waxa weeye Puntland waxay noqotay maamul goboleed super state ah waa de super galmudug iyo hirshabelle oo isku dhuftay way eg tahay dhaqaal ahaan waa kuwa waa madax banaan tikid ba haystaan dowladii mar walba ku taagan yihiin farmaajo kaliya kuma taagna xasan ay ku taagnaayeen shariifka ku taagnaayeen kan iman doona bari ku taagnaan doona sababta oo dowlad ka dhaxbaxday dastuurka ugu qoran tahay qodob dastuur kamid ah waxa weeye Puntland ilaa inta la helayo dowlad Soomaaliyeed awood leh ilaa inta dastuurka afti lagu meel marinayo wixii lahaanaysa awoodaha dowlad madax banaan madaxweyne kasto yimaada markuu qodobka akhristo ninka filo Soomaaliya fadhiya isaga isu qaadanay ka awood badan yahay marka hadii maamul goboleedka halka laga sameeyo Puntland mini state bay noqonaysaa hirshabelle isla kaanaya waara inta uu doono in ka badan dani dooni miyo sababta laba gool ay bara u haraya waarina labada gool ay barkaas u haystaan faa'iido kale Soomaaliya ugu jirta waxa weeye anu farmaajo ka hadlay dowladda Soomaaliyeed cid kasto bari timaada xataa ka hadlaya Soomaaliland waa ina go'aan bay rabaan Soomaaliland goon isu taageeda cid hortaan waa labada gool way hadii maanta labada gool ay dhahaan anagu Soomaaliland ba raacayna Ingiriis waa hor la faqay Faysal Ali Waraabe iyo Muuse Bixi iyo Silaanyo wuxuu yiri hadaa rabtaan ina aqoonsado lixdankii inta xornimada ku siiyay idinkoo dhan ii kaalaya Soomaaliland caqabada kaliya hortaagan waxa way labada gool baysan hayn mar walba iyaga jaqtaq leh xataa maxaa ku raadayay meel walba warqad u qorayaan hadii marka labada gool ay maamul goboleed noqdaan Soomaaliland waxay qabiil meel fadhiya hadda qabiilnimada waa ku xananaamo si buuxda uma aha laakiin marka waxa noqonayaan qabiil meel fadhiya waxa way iyaguna waxay u gali doonaan halgan sidii maamul goboleed loogu aqoonsan lahaa hadda wixii halgan ugu jiraan sidii dal loogu aqoonsan lahaa marka halgankoodu wuxuu noqon doonaa sidii maamul goboleed loogu aqoonsan lahaa marka farmaajo madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kuwa hadda jooga kuwa iman doona dan ba ugu jirto inay aqoonsadaan sababtoo ah Puntland iyo Somaliland mar walba dowladnimada Soomaaliyeed waxa weeye waxa ku yihiin caqabad bay ku yihiin sida kaliya lagu bajaqin karo waayahay inkasto aan aniga dan ahaan lahaa waxaan ka dhiga lahay afayeenka madaxweynuhu da aniga Soomaaliya waxay noqonaysaa sababtoo ah weeye iminka marketing asameynayso ee wuxuu wax maskaxda bini aadamka ka weyn oo aad u sanaysay in hadii halka Highland la aqoonsado حق بولنا يأكلين حق السومالة لط صاريا لكن واحد يحب لا يكتها انتهي أمور والك أمور وقادين هدي إمك نور سنجرية مدحوين لو قدينه أمر له بحاجة الصيو على قريب ولو تيري تعبر واقع هرجيسة فليه سو شغتي ما يساسد ذكوا يقين إن وصحوي فلو واحد تيموك بالي واحد جرتوي إن سياسيين تا لبلا قبل أما لبلا هير waxa lagu xantaa inay maalinba meeshii maartay dabka shideen aadaan waxa weeye taas waxa la sameyn doonaa waa laga baaraan degaya dadku isku mid maaha qof xul ah oo dadka masiirkooda lagu aamin karo xul ka saaga horta ninku ma dhul bahantu ahaa masi warsan gilmis qola kale maya eeg nin la hubiyay baa la sameynaya laakiin hadda ba aaminsantihiin in idinku waxba noqon karina ilaa baad qof la shaqaysan mooy maya waa la noqon karaa hal arin aan ku sheegaa علي خليف كلاير والحنية تابتي دولة السومالية أقونسون ويدي سوماليland meel walba ugu gashay min qaab qoysin ku jira buu noqday marka aakhirkii nafta waxa ku kaliftay tawa arkaysa sax dheer looga daba tagay Ethiopia galay marka hadii la yiraahdo maamul goboleedka idinka leh dawladdu way aqoonsatay waa ku mintidayaan laakiin علي خليف muxuu khaatimo hargeysa la galaa ama meel cid ala fadhiya wax la aqoonsan yahayba ma aysan noqon hadii hadda marka la yiraahdo marka hadda waxa dhimo waxa weey hal sano farmaajo
يا هدي مثل هوية تقصد بحنا وردالتها كوكو بدن يتكدا وعكت هذا سيسا سيدا حس شيء قوكرة مايا ما حاجة صوب بحية أوكي أنا كوشيجيا فرماجو قبل هذا يو نينكستو هوية وماشي ماذا وح أفعنانية نينك هوية حقيقة كوشيجيا فرماجو كدع ما يلانيو هذا كدعنا مالي وحي صورنا أما قبيل لجو بالكيا سلي هاي وبغيو بحري فنار كلا دعيان لكن نينك هوية كدع يلانيا وحكو شيء شيخ شريف مركو مش جوي بنتلان يسمعنا لبض ونفط أوكينا إنه كلا ففرو وجعلان جري خاتمه أو كلا دور بكلها حسن دور بكلها ييسن سي محاكو هذا بحذا أي سنوات قنصن مركن نينكست أو يماذا أو فرماجة بدلها دي مامل كارل دسو وأكو خصبنا يا إنه لا شقي صابته ده مامل أقنصيه بيجيمي دولة ده كليهن حل معنا بدن بكليهن وحنا أو استعمالية ديتيرنسي وصوماليان محاكو هذا أفكك جبيو وبوتلان أفكك جبيو بو استعمالية صابته خطرت بوتلان ميت بحي سماه قد يدقون نستاق الصوماليان ميت بحي سماه مدحوينها ما أنت لداريو هدو حاسة شيخي هاي بري هاد أما شيخ شريف بري مركل داريو عدة أوه الرئيس أو معارضة دني بنقونية عدة لبعض كان كل حاجة نروح نقونية موسى بنقونية موسى يسوى بفوقه هيك كان كواد وموسى كان لبعضنا ودني مركا وحول بقى مركا أي لبعض قبل كوجر لبعض ما قبل كوجر عند الحين كران وحوي ويكوخس بنانا يعني مركا التيرنس أهم بقى هالسنة يعني يقول عن الضنين وايه waxa meesha yaal in min kalaasba ninkii reer suldaanka ahaa ama reer garaadka ahaa ama boqortooyada wasingili ahaa ee abwaan cabdirashiid ayuu gudoomiye ka dhigay baarlamaanka saasoo ugu taxay xiyalkii madaxweyne ku xigeenka Puntland garaash yaa halka fadhiya dad bahantii wasingili kala xaran meeshii iska dhuuqayaan hay marka xageed wax marsinaysa ragga dhamaa ee ugu weynaa wasingili haduu iminka oo xilku u dhiibaydani سيد واحد يقول شغيريا عبد الرشيد قدومية على دورتي وانا شخصية وي سومالنا واحد جلدت بدل ما مقدشة كشقيات وي حير با كميدا وي بايلا كميدا دولك حتى متي كران دولك كي ما ذين حتى متي كران ويسك شقي السنة نيكا نشقي السنة واي وحلقو دورتي absolutely صفاء شرعي هين دوبا وحلقو ذي صفاء شرعي هين نيكا اللي يراهدو أبوان عبد الرشيد شلي مركو مشرحها دورشة حد مركي برلمانك اللي دورني أو سيدا حلاش اللي دورني برلمانك شمعة بوكهلي وحوي كين نوسن استاهل هين إن محاكو على دورته كباستي هذا الحين أقونت هذا الحين خبرت هذا الحين وأرجمت هذا الحين ما أنت محاك يعني إن وهلا وريج كواد بردوري أفرت نحط وح هلاي دورشة دي بالك عم بدحيني حرماهي حل بعنا دي باللالوشي حبت بعمل حرقة هي وأغلب كبرلمانك مدهوري علي محاكو لها شيكيال با محاكو لها لوgu soo weerarayay suugiya banaankiisa yaalay marka wuxuu noqday nin meesha la iska saartay oo la iska geystay oo loo geystay waradna shaqayso oo halka calooshaada u shaqayso anagana noo shaqay marka ma yeelanayo wax saameeyna ma yeelanayo ninka la yiraahdo crash waa nin oday isagu waa nin la doortay deni isaga sheegay hirigrig bay ku wada joogan inta si wada joogayaan ilaahay waa garanay maalin dhaweyto hadda ilaahay hadda amaradiisa ma shaqeynayaan gawaarida ka dib oo ku xaniman oo hay'adda BSF la yiraahdo ay leedahay hal si daayo yiri markii la damcay la sii daayo dili baa telefoon soo diray isagoo imaaraadka joogo wixii lama sii deyn karo marka isagana dhoobe isku garab haayeen ciidamadii habeenkii baarlamaanka lagu weeraray waxaan rabaa inaan ku xuso oo dawladdu ay weeraraysay oo la lahaa waa jiri Axmed Karaash gaari iyo 12 wiil buu ku lahaa markii damo kala baxay markii dhoobe ciidankiisa la baxay buu la baxay marka Axmed Karaash waxa weeye waa nin garbi laga maxaan ku rahdaa laga siibay wuxuu hadda labo inuu deni isku taago oo gudoomiye baarlamaan baa loo haystaa markii sidii dhoobo si ka fudud afka loo jabiyo iyo inuu isaguna iska shaqaysto marka nin oday weeye kulay waxay la tahay nin waxaan qaadan maayo laakiin waaya kaba soo qaad Highland baa dhisantay ayaa looga dhigayaa madaxweyne Highland Highland waa gobol kamid ah gobolada maamulka wali magac looma bixin khaatuma loo bixin karaa maakhir baa loo bixin karaa midnima loo bixin karaa sansol baa loo bixin karaa wixii la rabaa loo bixin karaa يا مدحوينه laga dhigay dhulbaanta laga dhigay dhulbaanta wax madaxweyne dhulbaanta laga dhigay warsigil maxay yeelanaya warsigil wuxuu yeelanayaa
horta madaxweynuhu wuxuu noqonayaa wax lagu tartamo way laakiin marka hore sida aniga inta ka warqabo dhulbahantaa la yiri warsagalku yiraahdeen uga taraasulo si wuxuu macna fiican u yeelanayaa maxay yeelanaya warsagal wuxuu yeelanayaa de wixii ka soo haru yeelanayaa hadhowdiina heer kale meesha degan madaxweyne ku xigeen waxa laga yaabaa inay habar yuusuf ku soo fiiraan madaxweynuhu yeelan karaa faqashini baa meesha baarlamaan buu yeelan karaa kaskii qaba joogo maxaa loo ogol yahay waxa dadka kale de dadka kale de ma ogtahay ma sidina ma jarteenka isaaq un maya waxaas ma jirto waxa ma jirto waxaan kaaga shekeynaya dadka halkaa degan waa dad xuquuq leh waxaan ku iri nimanka hadda dhulbahantay waxay leeyihiin madaxweyne anaga ma rabno warsangeli ha qaato warsangeli wuxuu leeyahay ma rabno dhulbahanta ha qaato marka dadka dad xuquuq leh weeye markay wax qaybsanayaan u malayn mayo inay ku dirirayaan waxaan hubaa maamulkuna inuu leeyahay waxay iyaga leeyihiin oo faqashini iyo kaskii qaba maxay qaadanayaan adigu de wixii loo gartay qaadanayaan oo maamulka wax ku yeelanayaan wixii xaq u yeeshaan waa ka helayaan laakiin waxaan ku hubaa maamulkaasi ma noqon doono meel isku boobo sida puntland oo kale ma noqon doono meel isku dulmiyo sida somaliland oo kale dadka cid walba wixii xaq u leedahay waa ka helaysaa waxaana loo dhisayaa maamul iyagu leeyihiin xilka maxaa ka qaalisan xilka waxaa ka qaalisan madaxweynuhu waa tagaa waa yimaada madaxweyne ku-xigeenku waa tagaa waa yimaada laakiin waxaa leedahay marka hadda dowladda soomaaliyeed sooma lehin idinku ala xal maamulka ha sheegtay maamula dhisaysaan idinku warsingili iyo dhulbahante iyo kaskii qabe iyo faqashini iyo habar yoonis habar jeclo macnaha adigu wixii intii ogol intii ogol okay waa dhisteen maamulkaas wuxuu noqonayaa maamul dowladdu ee u roon oo dowladdu dhexe u roon sooma wuxuu noqon doonaa maamul roon dowladda federaalka maamul uga fiican somaliland iyo puntland somaliland waa caasi maamul ku xiran federaalka maamul dastuurku wuxuu dhigayaa dowladduna dee waajibaad bay leedahay maamul goboleedyaduna waajibaad bay leeyihiin maamul wuxuu noqon doonaa waajibaadka dastuurku u ogol yahay caafimaadka arrimaha bulshada gobollada ka shaqeeya laakiin madaxweynihii soomaaliyeed aan dhinac ordin habaarqabe aan ahayn imaaraad aan u gelin etoobiya u duulin hadba maxaan ku dhaha garoon cid siin deked cid siin maamul adigu maamul fiican buu noqonaya ummadda soomaaliya u danaya qaal ku saabsan inaysan meeshuba deked lahayn dhul ay tahay mataqaanaa oo sidii iska xiran oo aan mataqaan locked area inay yahay waan usoo laaban doonaa waxaan ku sheegi waxaan usoo laabanayaa dowladda farmaajo hirshabeelley camcamisay wax ka socday wax ka dhaqaaqaya ma leh koonfur galbeed bay camcamisay lafta gareen baa iska fadhiya xaggan lugta gareen baa iska fadhiya galmudugtii ay ka rinta madaxweynihii lugta saartay waa taa iswada haystay etoobiyaan la geynayo so un kaa dhisaysana kuwa ay kala noqon mayo wax micno ah dadka deegaanka wax usoo kordhiyaan kuwa hadda dhisane mid haddii dowladda ku xiran ay aqoonsataha uu yimaado kaa muxuu ka duwan yahay hadda micnaha dowladdii federaalka oo dhexe iyadaan awood lahayn maamul goboleedii iyagaan awood lahayn waxaynu ku jirnaa marxalad micnaha geedi socod soomaaliya dib loogu dhisayo maanta maamul awood u leh inuu maxaan ku dhahaa uu bixiyo adeegyada laga rabo oo dadku iska rabaan ma jiro mid dhulkiisii oo dhan gacanta ku wada hayaa ma jiro puntland dhula iska sheegataa waxay gacan ku haysto male dowladdu laamiga dhinacna ugama digto somaliland sidaas si lamid ah caaraa wuxuu u fadhiyaa oo jabhad haystaaba wuxuu u fadhiyaa berbera dusheeda u fadhiya marka muuse xoogaaga uu sanduuqa kan SDF la dhaho Somali Development Fund oo European ku xugu ridaan oo marba maxaa ku leeyahay dadka wax loogu qabto ma hay hargeysa biyo ma geliyo wadadii siyaab barka ka dhacay isagoo habaaraya buu sii maraa hadii meel ka fuqdo ma dayactiri karo dani waa la mid marka dowladda Soomaaliyeed baa hadda iyadu dadaalaysa oo Muqdisho hadda sawirada marka laga soo qaado nolol iyo dhaqdhaqaaq baa ka jira waxa ka garan kartaa dadka reer Muqdisho oo waagi hore soo qaxay dadka reer koonfureedka soo qaxay Puntland Somaliland ku soo qaxay ma soo qaxin dadka qaxootiga ma dhaho macna IDPS ta aha oo dhulka kan kaleeto Soomaaliyeed macna dalka dhixiisa ku barakacayaasha aha waa noqonayaan hadda cid ma Muqdisho ka imanaysa iyo koonfur ma jirto laakiin hadda waxa barakacayaala dadkii dhalinyaradii reer Hargeysa waxay wada fadhiyaan tuban yihiin maalin walba diyaaradu waa qaadayaan Muqdisho maxay raadinayaan nolol bay raadinayaan shaqo raadinayaan kuwii garowe ee boosaso sidaas la xagga aadayaan dowladdu waa roon tahay waxaan ku jirnaa marxalad soo kabasho ku jirnaa marka maamul goboleedyadii inaysan waara inaanu macnaa wax badan qaban xaaf wax badan qaban lafta galeen wax badan qaban taasaa keenaysa dowladii male maxaa ku raadayay ma hayaan awood badan male laakiin dhowr sano soo socda marka Soomaaliya deynta laga cafiyo marka maxaa ku raadayay ay noqdaan balikaad sheego ku weydiinaya su'aal waxay ugu xiiso badan ku weydiinayaan oo dib u dhiganay dagaalkii dhowr direed iyo ninka la yiraahdo Dani محل محمد عبد الله سعيد عبد الله دني
iyo dhoobadii dagaalkoodii xoogiisu wuxuu ka bilowday markii ninkii Cumar Maxamuud uu gacanta taagay xildhibaanka صح oo ninkii su'aalo weydiiyey صح markaasuu banaanka dagaalka yimid صح dee markii dambe la ridayay markii dambe dhoobadii la ridayayna kii Cumar Maxamuud Saleebaan xildhibaankii gacanta taagay in rido markii waxa dhacday waxa ku fasirtay waxa ku baxay waxaan ku sheegay ay marar badan ina iga maqashaan rajeynaya dadku inuu iga maqlaan ma rajeynaya way Puntland lagu sheegaya waa maqaaxi Maxamuud Saleebaan shida way Maxamuud Saleebaan way horta dhageyso Maxamuud Saleebaan iyaga ma kala adka way hadda ko riwaayadan ka sameeyaa jirtay madaxweynaha marka su'aalaha la weydiinayo xildhibaanadu weydiinayaan ka warsangali waa loo hanjabaya kan dhulbaanta waa la caayaya kan dishiisha waa hadal baa lagu tuuraya ma jeerteer mikrofoonka madaxweynuhu ka qaadanaya laakiin xildhibaanku hadduu Maxamuud Saleebaan yahay madaxweynaha ba cararayaba magaciisii markii su'aasha uu weydiiyey dani xaq buu u lahaa xaqa markuu lahaa su'aashii dani ma jeclaysan waa tu hoolkii uga baxay isagoo hanjabay داني وحو دبعي إنه كان حلك كقاضو وكقاضي كل واي محكمة دعوت بلوت تكسير وحوا كقبل واي عرضي بوحو كل دعي دوبا كل دعي سابتو دوبا وحو بيشي ساعة وحتى بيلا قاعد جاي ما كانت رنت تابنو ودني قاعد جاي قدامي برلمان كانوا وهري كرا وورري كرا وحو وطول حلوان محمود سليمان أمريكي كرا marka xildhibaankii iyaga waxba ka dhaxay moogtahay اتفاقيات وثائق ilka abis hoos ka xirsan baa xildhibaankii hadda waa loo yeeray waa la canaantay waxa la yiri madada tan Ismaan Maxamuud baa lahaa Cumar Maxamuud haddu ka degay waa edab daran tahay waa la canaantay waxa la yiri dhageysho jooji madaxweynaha ka daacad u noqo la fiisan waa u baahan xeerka Maxamuud Saleebaan ku hajin baa lagu yiri soo ma hajibin de marka waxa la yiri gacantana iska taag waxaagana qaado shino ma Puntland ka hadlayna meel kale waxaa la yiri Puntland laba madaxweyne oo soo martay madaxweynayaal ka fiican soo maray haye ninkii leeyahay Cabdiwali Gaas sax iyo Saciid Cabdullaahi Dani sax madaxweynayaal ka fiican soo maray sax sababtoo ah markuu Cabdiwali Gaas yimid xaafna galmudug tagay colaadii mudug waa istaagtay sax u fahamtay sax sidii Faroole iyo ragiisna intay carraan dawladda kama mataqaana uma shaqo tagin sax ninka nin adag buu noqday waxba looma yeerin sida la filayay ma noqon sax ninkii birig lacagta ka dhacay maxaa uu sharax magaciisa sheeg jabiye ma noqon ninkan ma jabiye dadku dhan lacag ka cunaan lacag kama cunina dadku dhan boobayay anu waxba lacagta laga soo qaaday intuu bixiyay baan badnayd soco ni fiican buu ala xa intuu ka soo qaaday way xamar buu ka soo qaaday lacagta oo bixis isaga sitii way xamar lacagtu ka soo qaado kale ma ahay ninkan nin wanaagsan buu noqday danbi dadku u duceeyaan sax aniguna isma lahayn shiino culay oo danni ku dhagan ba arkaysa isma lahayn sax dad badan saasi qabeen sax waryaarahe shiino amu reerku iminka noqdaa inta adigu kooxda ha soo socotaan iyo dhulbaxataha soo raacaba dawacada socodkeeda ka tagtay kii kale gaari weyso oo maamul fiican dhisa weysaan Puntlandina colaad adka abuur waxaan ku sheegayaa horta Gaas iyo Dani labaduba madaxweynayaasha Soomaaliya soo maray Puntland soo maray kuwa ugu fiican ma ahayn Cabdullaahi Yuusuf Allah uu naxariisto ninkii dawladda dhisay weeyay nin oday buu ahaa Puntland iyadoo bankooda buu dhisay waa aabihii Puntland maxaan ku raahday soo barbaariyay weeyay isaga waxaan oran karaa waa ninka ugu wanaagsan dadku ma kala dhicin marba meel ba joogtay waxa ku xigay nin Cabdi Xaashi la dhaho oo muddo badan aan joogin oo baahanta aha oo sima aha wakiil weerare wuu fiicnaa nin fiican buu ahaa cadda ku xigay nin boqor ah oo aad dadka inuu isugu hayo aad u jecel buu ahaa oo odaya oo xumaan lahayn oo afkiisa adinkiisa laga nabad galo oo si caaqilnimo ah dadku ciyaalka xafada si caaqilnimo uu dadku ugu shaqeyn jiray nin boqor u ahaa guri dhaqan buu ka soo baxay ku soo koray reer boqor buu ahaa marka dadkaasi macna odaynimo la duub u xiran jiray maba u dawladin jiray nin aad u fiican buu ahaa Faroole waa tanaali dawladnimada wax badan buu ku soo kordhiyay Cabdiwali waanigi magaca ka bixi Cabdi Khadar Maayri nin aad u fiican buu ahaa anu majaajilka ka fiican ku geeyay balaasis oo ninka ku arkay anu niga gabadhu qaba dad ka fiican oo jeerteena iyo Soomaali absolutely haddana London buu joogaa
hadduu ina maqlayo odayga waa casumeynaa london jooga yurub inuu maru rabaa kaale baan leenahay odayga maalintii anaa madaxweyne ahaa bal ninkaan ismaan maxamuud maanta anaa faainin haddaa yurub timaado ninkaan boqortooyada dhanada deni aan kaaga sheekeynaa ismaan maxamuud horta kaale mutacalima maya horta waxaan kaaga sheekeynaa eeg dadka dadaa ma jira habaabinaya eeg anaga dadka wax kala naqaana moogta aduu nin hawiye ah tahay ismaan ku yahay ma jirtaan ku yahay daaro ku yahay kuwa facebook ku soo qorayay waxa magac dhaymayo boqor baa wadanka xukuma war ninkan bahdir weeye waxa weeye bah dhulbahantaa la dhahaa bah dhulbahantee boqortooyo ana ila siman tahay meel ugu soo martay ismaan maxamed waxba iska begelintay ismaan maxamed qabiilo qaran waaye moogta boqor haddii boqornimo haddii wax lagu dooranayo boqor in diyaana ahaa isagay ahayd in la doorto ninka waa nin bahar dhulbahanta bahar dhulbahante waa dhulbahante yar weeye hawsha orodka maxaan ku rahaa kicidda boodidda maxaan ku rahdaayay ma ka hadli kartid marka dad baa jira cismaan maxamuudka boqor baa puntland hogaamiya puntland boqor ma hogaamiye nin bahar dhulbahante ah puntland hogaamiya reerkii boqortooyadii daarood oo عدة كسر جيد أو بقول برهان ده كسر جيد سو جيران كه بنان كتاعين بعدين تضبط يلا بعد تمويل بكحيران وهذا لا كحيران إنما ماذا فيسبوك حقوق قرة أفراتك صعب بهدر بعاية ده كان بقرة عاية واجي هراء قفك بهدر أفك تاج أفك قلوا عندي هسبة الأورنجري هذا ما قرن كرد هذا حرام يعنين ما معنين حاشا وجود لكن دتك بقى النقضي دتك بقى النقضي دد دم بالصعونية marka tahay qof aan dambiga ku badnayn maalin hadaa khaldanto waagi hore waa lagu qabanaa moogta laakiin dadka hadda waxay iska dad subac marka waxa ma qabanaya iska munaafiqiin habar ku dhacay laakiin bahdir dad nadiifa oo fiican way iyagii ba hadda dani baacsanaya waa meeshan ka dhaho nin hooyadii ka guuri sodohdii uma nagaado dani isaga boqorkiisii dagaal kula jira maalintu xilka doonayay waa isiiday qardhu ugu tagay lagu qabsaday boqorow hore baan ku maagay wiiri doorashadii dawladda federaalka ahayd baan iska ka maagay isagaana maagay wuxuu yiri boqorku wuxuu la socdaa Umar Cabdirashiid buu la socdaa boqorku qarri joogo muqdisho wax ka gelin iga raali ahaw maanta idis buu yiri boqorku wuxuu siyaasadeed mihi nin walba oo yimaada waa u duceeyaa tusbax buu dharka ka dhuftay maalintii la doortay Islaan Ciise Maxamuud uu yiri kaale cali masaarkayga fur oo xir boqorkiisii oo 100 kilomitir 7 kilomitir joogo qarri joogana إيمان مكروبي إلى أي سيدي بقرك وضك بقى تجي مركب حكون شيء سعيد بقرنا ما يلا نص مرة هدو في عين هاي يهدو حين هاي تاريخ حوش تونتا وحنكو يربون تلا وحو قد جاي مقحي كوح أرجال هالله هاي يسمونه شركة توفيق وكله وأجسمك هاي بوساس على عملية دور شلي هبين هراء نمان قضية شجع القبطي وصدق يتمن كبيرود وقبل كبري دقائق وعثمان محمود كجرو وعبد العزيز بيدبا وعثمان محمود بهدر عاقل كذي محاكل قبل كبري دني وحو خربو هدي حبسي قال دونيكي صد من الهاوي با كجري هدو دمير لي هي ددكا انو دغيشتو بي هي انو u yeero bay ahayd inuu cabashadooda marka u yartayna inuu haduu arko in xataa ka qaldan yihiin inuu isdhaafsi yahay waa wada weeraray waa soo wada xiray qaarkood gacan ku gabadweeyo odayaasha xabsigu ku wada guray marka ninka noocaasa waaye dadkii cidii hadasha afku jabinaya Muuse hadda laga cabanaya arta Ciise Maxamuud ma yahay mise maaha Ciise Maxamuud waaye hadda Ciise Maxamuud waa reer boqor adiga ana saaqul eeg waa ano hadda waa iimaan maxaana iimaankooda iska kaay galay waa raga habiyo ka inaway eeg hadaa leedahay maxaa ku raad deni Ismaan Maxamuud nimo boqornimo ku noqday faroolena Maxamuud Salmaan nimo boqornimo ku noqday galan mid la dhaho Cali Salmaanana ma jirtay nimo boqornimo ku noqonaya hay waka Cali Khaliifna boqornimo way hartin uu ku noqonaya Ahmed Madoobena boqornimo wuxuu ku noqonaya inuu yahay nin daaro inuu yahay nin kabalaxa farmaajona boqor wuxuu ku noqonaya inuu yahay nin daaro إيشك وايه مركب حقيشك تا غورمي maamulkaani wada dhisanaya reerahan adiga oo Allah u jirto nafti yartahay ba kaaga dhacday goormo dhismaya ba muxuu qaadanaya muddo sida qorshu haday yahay laba bilood gudahood maamulka soo dhisay sida qorshu yahay hadii adu waqti qabso laba bilood shan ba kaaga dhigay haduu shan dhismo waayo madaxweynaha Puntland iyo maamulkiisa ma raacaysa mayo aamusaya shan ba ku qabtay afkayga haysanaya hadda waxa way waa December January February March April May anu laban June hadda wuxuu ugu direysana bil ugu dar may adu shan waayahay
odaygu afkiisu haysanaya odaygu afkiisu haysanaya ama hirshabeelu iska dhiibaya waaru iska galmudugan xidda adu xagga saadeen afkiga haysanaya waya laakiin deni afka aan ku dhaliilayo xasha wujuudin aan ku amaanayn kula shaqaynayn sababtoo waxa la yiri biyo aan waxa la yiri raadkooda arko hubadooda biyo markay soconayaan haddaa marka hore aragto markay soconayaan ay hore ka wasaqaysan yihiin gadaal dambe waxa ka sugto waxay noqonayaan caraq ya uro waa inaas ka carab waayay waa soo gabagabaynaa sheekadaan su'aal ka weydiinaya bal wixii arintaasay kula muuqato yaad ii sheegay ka baxsay mabduuca sayidka waxaa la yidhi Soomaali qabiil Soomaali dhex maray markaas waxa lagu yiri war sayidow wasiir maxamed cabdullaah xasan adaa Soomaali soo dhex maray nooga waran maxaad ku soo aragtay wuxuu nimanka ciise midoobe leeyahay waa soo maray ya adduun waa haysteen wayna ka ahradnaayeen ya mina adduunna waa haysteen nimanku ahradna waa la liitay xoolana waa haystaan isumana quureyn صح وحالي وحوري سمرون نمكي وصومري نمكي وأوي عد لي سلام أركين صح يا صح وحوري الساق ما صومري الساق وحوري وحوري وحدك عليا عد يقول سلام أركين ولا ومعناه كذب خلص كذب على نمكي ساق أنا واحد ما أركين بقول وحوري نمكي البحان تاعها وصومري وحمي بقى إمام وغنبوري وحمريها التوتر معرك صح صح صنع وصعت عن نمك هاجي وحول نمك ورسنجليها وصمري ورسنجلي وصمري وحول وح أرن كأننا ما صارك وح أقبل وضلكم ما صارك معناه وح أوجيس كأقبلية أرن كأن ما وح معناه وح أنا والله أرن كابا والناس ده الله يو ما أقارنيا وح إلواك وأقبلنا وح ودنا ما أقارنيا صح كم صارك وحوري وحوري مجرتين يكلا وصومري وحوري قف عن نمره بكم صارك مصير هاي صومري نسكم عارف صح منها وحيل إيه هيانا ما أعرف صح كل جود نحكم بالدنيا صح وحوري نمك هوية أنا وصومري وحوري نمك تعب الدنيا وهستين لله هوية لكن ما هي تلا الدون ما هي صح وحوري نمك الدقلي من فلها لو صومري وحوري وحنا لو يوكايه صح نفنكم مجري أقول نفنا وحي كنا راقي المجري ها نفكم مجري شيكا أنا ما قاعد في سيدكم ما حكوا بح وحا إيه بحي مرمو كوا شيء مقاربو horta waxa ku sheegaya sayidka de wuxuu ahaa waagi philosophy ha dadku xigmad buu balaha xataa qofkii aan philosophy ahayn taariikhiisa dadku xigmad baa la wada lahaa hadda jiilka dambe jiilku ka dambeeyo waa ka silitaa hadalka sayidka waxaan oran karaa waa hadal waqtigiisii joogayna waa ahaa waana u egtahay waa daar cala soo ishiin culayda sida ay nabadiino odaygii baa la joogaa insha Allah maanta magaalada waxaan isku soo wareegaynaa hadda wareeg aadina holanaan wareegaynaa yalla aawo waxaan adiga daahiro kaaga marti ahay nimanka hawiye ee ka dhalatay lafta Soomaali u weyna lafta geela badha ina ka dhaadhiciso war dadkaasi maamulka daaya adeerayaalo banaad isteeda bay soo socday annagu ina wax ku biirna mooyee waxa ka dhimay waayahay waa in salaam Allah ka dalay hadii salaada la yeelayo ninka waxa dhahnay nin Puntland iska ahaw waxbana hala meeraysan Muuse Biixi maamulka u baahantaana waxba hala meeraysanin ninka dani yani Sheekh Abduuli un kolba ninkaas ma jeerteen ninkii ugu fiicnaa aan ma jeerteen weligii Abduuli oo marka la abtiriyo soo gaaro horta marka la abtiriyo reerkeenu kama dhalin maan todobo nin oo ma jeerteen ku maqnayn marka la abtiriyana xagga hooyo xagga aabe qolo aysan gacantii wixii awooyaashay gacantii ma jeerteen ku maqan yihiin saasay tahay haddana waa nimanka wadagno dhaqanka aan isku dhaqanno waliba nimanka sukee meesha aaga suka ha inkastoo ku Cusmaan Maxamuudka baa ku biyaan xagga iyo hobyo iyo ninka safta saaran waa ninkii suldaanka ahaa haddana anigu ma jeerteen ka maqal fiican oo ka garasho fiican Abduuli kaas maarag ilaa haddana ninka la yiraahdo Siciidani suuxooda waa la dhacsan أنا والله عسنا لكن هذا هدي ورسنجليه ما أنتو كان النار ده يحكوا أركان واسوق لكن هويه
waxba uma dhimi doonaan haddii shiina ilaahay soo diiday shaddah bilood wax ku dhis waayana anaa maslaxaynaya iska daayay waayahay aad iyo aad baa u mahadsantihi waynu salaamaynaa gudoomiyahana waa salaamaynaa marar kale oo badan baa ilaa maya maanta dhan baa la joogaynaa waa islaanay